دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله maanta magacaabo aniga kaliya malaayga ma farxinay shacbiga reer Soomaaliland oo dhan ayuu ka farxinaya adiga su'aalaha ka nasaray aniga waxa ka nasanay su'aalaha cid walba way weydiisaa damay waxa ku leeyahay madaxweynaha Muuse waa uu tagay waa madaxweynihii hore weeyaan uu mudan yahay sharaftiisii wanaagiisa laakiinse maanta qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa madaxweyne ka isaga heerkii dalka haya isaga mudan in la soo dhaweeyo caruurtay iskuulka ka soo waxday ayaan guriga isku imanoo bas in aab waxa nagu wareeriyay iskuulkii baa neelay aabaha miya la magacaabane maxaa dhacay aab isku yiraahday caruurtaadi waa kugu leh magaasaan ku rimaayay wala magacaabay suga aniga iyo qoladii shalay erini marka mucaaradka ana baxafida deena maanta makhaayadaas ka holayna ma hawa kulantaa boon daawadayaal idilhaantiima meel walba naga daawanaysaan waxa hadda barbarkayga taagan xogayaha gaadiidka xisbiga muxaafadka ee wadani xogay markii hore soo dhaweynaya madaxweynihii Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro shir weyn buu kaga qayb galay Dubai dawlado badan baa ka qayb galay bal ugu horreyn shirka uu madaxweynuhu ka qayb galay ka hor marka hore walaal aad baan ku salaamayaa Axmed Daahir waxa weeyaan waa fursad weyn oo Soomaaliland soo hoytay taariikhda dhowr iyo 30 sano ee maanta Soomaaliland ay shiltay waxa weeyaan waa markii ugu horeysay inuu ka hadalno meesha ballaaran ee adduunka oo dhan isugu yimaadeen Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah markiisii hore nin diblomaasiya oo ballamihii uu qaaday inuu ka mid ahaa inuu dalkan horumar gaarsiin doono inuu ictiraafka keeni doono inuu albaab walba oo Soomaaliland ictiraafkeeda ku imanay uu garaaci doono ballamihii uu qaaday dhanna uu oofiyay والله waxaan ugu hambalyeynaya madaxweynaha Soomaaliland chance wanaagsan oo qaaliya oo Soomaaliland Soomaaliya weeyaan waxaan leeyahay madaxweyne waad mudan tahay shacbiga Soomaaliland maanta way ku diirsadeen way ku farxeen madaxweynahoodii Soomaaliland oo dhax fadhiya madaxweynayaashii adduunka iyo dhowr iyo 80 madax oo caalamka kamida dhax fadhiya calankeeni Soomaaliland oo ka dhax babanaya calaamada adduunka waa wax Ilaahay loogu mahad celiyo Ilaahay baa mahadaas subhanahu wa ta'ala iska leh madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahina waa uu mudan yahay waxaana rajaynayaa haddii alla ilaado inuu noqon doono madaxweynihii Soomaaliland ee ku guuleystay inuu ictiraafka keeno way ka go'antay muddada uu wadanka u shaqeynaya uu maamulayo inuu dalkiisa horumar gaarsiiyo oo ictiraaf keeno ومدني مانتا عبد الرحمن محمد عبد الله إنه مانتا سوى ناقصن وهيبد لما كي مريانا ذكر اسم الله سودويان وروح بدن وقيمة بدن وايو السومالي لا مانتا والباهين تادون كوراني ما قاعد السومالي ما كشكين سام ميل أني السومالي لان جارين أيو مانتا عبد الرحمن جارسيي وإن شاء الله نروح ميلا كسي بدن هدو الله ينطو حركة هايو أيو جارسين دونا وايو دبلوماسي adduunka oo dhan baa yaqaana wixii aan ololahay ku galanay inaan wadno madaxweyne diblomaasiya oo dalka iyo dalkaba u shaqeynaya oo horumar gaarsiinaya oo caadifad iyo qabyaalad ku shirin ee laga soo wadankiisa horumar inuu gaarsiiyo way madaxweynihii hore Soomaaliland baa isna maanta la soo dhaweeyay bal ka war madaxweynihii hore Soomaaliland waa madaxweynihii hore heerkii madaxweynenimada Soomaaliland iyo sharaftii Soomaaliland madaxweynayaashii ka horeeyba lahaayeen ayuu leeyahay laakiin waxaan maanta waxa laakiin aan ku leeyahay maanta qofka mudan ee Soomaaliland indhaha ku haysa waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi isaga oo mudan maanta in la soo dhaweeyo isaga madaxweynaha waxa la leeyahay la soo dhaweeyo markuu imanayo miya madaxweynaha isaga mudan maanta in oo shacbiga quruuta Soomaaliland maanta isaga ay ku taala waayo heerka maanta in gaarsiiyay iyo halka maanta taaganahay iyo bulshada caalamka oo inagu mid noqday waayo waa dadaal isugu sameeyay iskama iman wax iska yimid maaha waa dadaal uu sameeyay waa furfurcooni uu sameeyay waa xiriirada caalamka oo la xiriiriyay ayuu ku keenay maanta inuu Muuse soo dhaweeyay ciraha soo dhaweeyay aad leedahay xogay maanta waxa ku leeyahay madaxweynaha Muuse waa uu tagay waa madaxweynihii hore weeyaan uu mudan yahay sharaftiisii wanaagiisa laakiinse maanta qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa madaxweyne ka isaga heerkii dalka haya isaga mudan in la soo dhaweeyo isaga mudan in la hool kaco isaga mudan in la hol istaago oo sacab iyo gacan balootmo way markaa shacabka Soomaaliland ma waxa si cad ugu sheegaysaa in Cabdiraxmaan Ciro maanta la soo dhaweeyo maadaama uu guul taariikhi soo hooyay
cabdiraxmaan maanta qulubta somalilan buu ayuu soo jiitay waxaan soo walaa kule waa taariikh aan somalilan maanta madaxweynayaashii hore aanay dhigin ayuu maanta cabdiraxmaan dhigay waa taariikh aan la qarin karin waxa weeyaan ma aha isagoo madaxweynuhu nin caadifad wada waa nin qulubta ummadda doonaya inuu waddankiisa iyo dalkiisa intaa muddada xir ka hayo inuu kaga tago magac sharaf iyo wanaag waanu kaga tegayaa ilaahayna waxaa leenahay madaxweynaha kula galab galo intaa in ka badanna waan rajaynaynaa xogay adiga in badan waxaad ka mid ahayd raggii xisbiga mucaaradka ee waddani markuu mucaaradka ahaa la soo halgamay iminkana xisbi xaakim baa noqoteen magacaabistii madaxweynahana in badan baa soo baxday adiga xilkaagii meeyi walaal waa su'aal aad u wanaagsan weeyaan su-aashaasi keliya maaho reer somalilan oo dhan aad bay weydiiyaan waxaan u malaynayaa galmaalku magacaabaya leeyihin waa su'aal aad wanaagsan laakiinse waxaan u malaynayaa haddii waa la yidhahdo doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillahi maanta uu magacaabo anigoo keliya malaa'iga ma farxinaye shacbiga reer somalilan oo dhan ayuu ka farxinayaa anigana waxay ka nasanay su'aalaha cid walba way weydiisaa cid aan ay weydiinin su-aashaa ma jirto waxay ugu darnay markii anagoo dadkii kale ummadii kale aan qaatiyay ka taaganba ayaa waxaa dhacdaa carruurtay iskuulka ka soo dhawaxday ayaan guriga isugu imanoo base aabba waxaa nagu wareeriyey iskuulkii baa lanaga leeyahay aabbaha miyaa la magacaabine maxaa dhacay aabba isagu yidhahdeen carruurtaadii baa kugu leeyahay magaasaan ku maya waa layna magacaabaya suga markaa cabdiraxmaan aan waxaa nin inankiisi baan inaan ku kalsoonay ma lahay insha allah qof ilaawiyana ma yihi madaxweynuhu markaa waan sugaynaa insha allah adigii carruurtaadii ba magacaabistii madaxweyne ciraa sugaysaa qalankii waan sugaynaa hadda waa layidhaa insha allah hadda waa layidhahda madaxweynaha waan sugaya ha waayo waxaan soo hargamayayba dee ma soo dadaalayayba dee waxay ahayd inaan madaxweynaha anu 11 sana xisbiga ka mid ahaa ciyaar nafteyda iyo maalkayga iyo xoogayga iyo waan geliyey oo wax la qiyaasi karayo maaha dee waxaan u soo hargamayay inaan madaxweynaha markuu farxo oo xilka qabsado insha allah aniguna kan shaqaali in la shaqeeyo oo shaqaalihiisa ka mid noqdaan ayaan ka mid ayaan haddii qalinka madaxweynuhu ku qaban waayo ka hor may uu qabanaya hadda caroon doonta may taala kama yaabe anigu horaan u sheegay madaxweynuhu inaan weligeyga ag tagnaayo hadda waa la yidhahdo laakiin si uu qabanaya hadduu waa la yidhahdo meel wanaagsan uu qabanayaayo halkaa ka daadhay halkaa ka daa hadduu waa la yidhahdo aniga iyo qoladiihan shalay erinayey marka mucaaridka ahaa anoo maxaafid ah dee ina maanta makhaayadaas ka hor imanaba maahawa oo meel wada fadhiisano marka insha allah wuu qabanaya hadduu waa la dhowaan hadduu waa la yidhahdo aad baad mahadsantahay